Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada saaxiibayaal, waa mar kale iyo muuqaal kale. Muuqaalkanan maanta waxaan ku baran doonaa sida loo sameeyo jawaab celin degdeg oo dhanka iyo WhatsApp-ka. Sidoo kale waxaan baran doonaa sida loo sameeyo qoraalada yaryar markaas sidaan oo kale. Haddaba haddii tahay markii ugu horeysa aad soo booqato channelkan, fadlan subscribe saar, notification-kana furo si muuqaal walba cusub kugu soo dhaco. Sidoo kale muuqaalkan like share isugu gaaro dad fara badan. Aad iyo aad baad mahadsan tahay. Haddii aan muuqaalkan hore gallo, waxaa lagaga baahan yahay inaad soo dejisatay wuxuu yahay WhatsApp business-ka. Kuwan kale lagu samayn karo isaga ayaa soo dejisanaysaa. kadibna Play Store waad ka helaysaa, sidoo kale App Store waad ka helaysaa, waa soo dejisanaysaa, kadibna waa soo furanaysaa. kadibna saddexda dhibcood ayaad ku dhufanaysaa, kadibna setting ayaad ka taabanaysaa, business tools ayaad ka taabanaysaa, creating halkaas ay ku qoran tahay message ayaad ku sii dhufanaysaa, kadibna tigta ayaad saaraysaa. halkan ayaad waxaad rabtaa inaad ruuxu aad u qorto ayaad ku qoraysaa. tusaale ahaan waxaan ku qorayaa waan mashquulsanahay, wax yar kadib ayaan kula soo hadli doonaa insha Allah. saas oo kale ayaad ku qori kartaa. kadibna qofka marka uu soo galo qoraalka ayaa u tagaya, sida taa ayuuna ku aqbalayaa. qaybta xigta muuqaalkan u guda galo. kadibna mar labaad ayaad soo furanaysaa Play Store-ka. kadibna qaybta kore waxaad ku qoraysaa read more ayaad ku qoraysaa. application-ka waa kana waad soo furanaysaa. waa kana laba qaybood ayuu leeyahay. qaybtan kore waxaad ku qoraysaa qoraalka aad rabto inaad muujiso. tusaale ahaan I love you ayaan qorayaa. I love you. qaybtan hoosena qoraalka aad qarinaysaa ayaad ku qoraysaa. tusaale ahaan sorry waa baraanka ayaan ku qorayaa. waa baraanka markaan sida taa u qoro, hoos ayaad u yar wadaysaa. marka hoos sida taa u yar wado, qaybta ay copy ku qoran tahay ayaad taabanaysaa. wuu ku copy garaynayaa marka waad ka baxaysaa, baag ayaad ka dhahaysaa. meeshaad rabto inaad ku dirto ayaad tegaysaa. tusaale ahaan WhatsApp-ka ayaan ku dhufanayaa. kadibna qofkaan raba inaan u diro ayaan saa u taabanayaa korkiisa. kadibna halkan ayaad qoraalka ayaad lagu qoray u riixaysaa keyboard-ka. kadibna paste ayaad leedahay, waad diraysaa. haddaba halkan waxaad ujeedaa inuu I love you ku qoran tahay. xaggan kalena qoraal yaro buluug oo real ma ku qoran tahay ayaad ujeedaa. qoraalka yaro buluug haddaan saa u taabto waxaad aragtaa sorry waa baraanki. marka sida taa ayaa loo sameeyaa saaxiibayaal. haddaba haddii tahay markii ugu horeysa aad soo booqato channelka, fadlan subscribe saar, notification-kana furo si muuqaal walba cusub kugu soo dhaco. sidoo kale muuqaalkan like share si uu gaaro dad fara badan. aad iyo aad baad mahadsan tahay. intaan muuqaalkan iyo muuqaal ku xigan kaga kulmayno waxaan kaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.